isku duwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Sool Dr. Maxamuud Xaaji Khaliif uu welinaya gudoomiyaha gobolka Xaysumo Cabdirashiid Maxamed Axmed Xiir iyo qaar ka mid ah saraakiisha wasaaradda caafimaadka gobolkaasi madaxa caafimaadka degmada Taleex ayaa gaaray deegaanka Sarmaayo ee gobolka Xaysumo halkaas oo xariga lagaga jarayo xarunta caafimaadka ee deegaanka Sarmaayo waxaa ka soo qayb galay xogayaha golaha wasiirada Soomaaliland Jamaal Maxamed Jaamac cuqaal oday dhaqameed iyo waxgaradka qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka Sarmaayo waxaana دي كم داسة سلام كدب وهم العلنيا ذات كالكس كوميد إلى محله وعول با ويما ما أنت دي مجال أوفرنت MCHQ ومهدوين ذات كبايو بدن وقبين المجال بالشدة ذات كحجرات كانوا وإذا كان مع العلني ساعد السوق هوشة سوق غلطي دولة الصومالي الآن وحنقول لنا حي مرة وحنقول لنا waxaanu leenahay wasaasa waxa la yeerin ninba wuxuu yiri markii sidaan hadii la leeyahay aan eeyaro dhalatay hadii la leeyahay wuxuu galay wasiilaas aad uga soo dhawaatay waxaan ognahay magaalada Sarmaayo ama degmada Sarmaayo inay aad uga fogtahay magaalooyinka waaweyn laascaano 130 jirto meesha la yiraahdo Xergaabo jirto intaas oo kale burxayntaas oo kale inay ku taalo meel aad uga fog magaalooyinka iyo isbitaaladii وين ognahay inta hablood ama qof ay xanuunsanaya halka laga qaaday u baahnaa wax yar ama oxygen yar lagu xiro ama faleemba yar lagu xiro inta la qaaday jidka ku sii dhintay ama naftu kaga baxday waxaas oo dhan waxaan rabnaa isbitaalka MCH kan inuu daboolo aynu baahidaas oo dhan aynu kaga baxno waxaan kale waliba rabnaa inaan maskaxda ku haynayna inaan intan ku ekaan aynu kordhin doono hadii la haydo oo noqon doono isbitaal ama health center fiican oo ku filan deegaanka Sarmaayo iyo hareerihiisa oo dhan waxaynu saaka joognaa waa xaruntii caafimaadka waxaynu ku wareejinaynaa ama aynu dhigaynaa agab caafimaad xaruntu way cusub tahay oo waxa la yegleelay dhawaan ayaa dawladdu halkan ka yegleeshay oo laga dhisay iyadoo la eegayo baahiyaha caafimaadku sida ay u kala muhiimsan yihiin iyadoo aynu ogsoonahay in xaaladaha caafimaadka ee dunida wax badan ay iska bedeleen xanuuno halis ah ay ku soo biireen caalamka sida xanuunka coronavirus waxaan rajaynayaa kullay bulshadu way wacyi gashan tahay waxa jooga shaqaale caafimaad xarunta caafimaadka halkan waxay ahayd kiro oo muddo dheer bay kiro ku soo jirtay mahadiha ka gaadho wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan dawladduba waxay dadaal badan u gashay in ay hesho degmada Sarmaayo xarun caafimaad oo ay iyadu iskeed u leedahay ama gaar u leedahay oo public ah dadka nu shaqeynayay kuna shaqeynayay goob kira iyagoo laga yaabo inay waxay ku shaqeynayeen ay ahayd voluntary aanay jirin cid ka caawinaysay xagga dhaqaalaha juhud badan la geliyay aan runtii baahida caafimaad ee deegaanka jirta had iyo jeer nagala xiriiri jiray raadinna jiray inay helaan goob public ah way ugu shaqeeyaan dadka Soomaaliya ana adigu mahad celinayaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeeyo oo taladiisii iyo fikirkiisii iyo bolosiga xukuumadda ay qayb ka tahay mashaariicda ka hirgashay gobolka Xaysumo Farxaan Maxamed Aydiid Bulsho TV Laascaanood